daawadayaal soo dhawaada isku soo noqod wanaagsan maanta waxaa idin wadaa taxane xiiso leh oo lagu magacaabo Faceless Love balse inta aan bilaabin janaalka subscribe saar sidoo kalena like saar muuqaalka sheekadu waxay ku bilaabataa anagoo aragno ilmo yar oo lagu magacaabo Fikej wuxuu la yimid hooyadiis jardiinada wuxuu ku yiraahdaa waxaan rabaa inaan ciyaaro ciyaarta halkan iga sug ilaa aan ka soo noqdo hooyadiis waxay ku tiri haye si taxadar leh u tag halkan ayaan kugu sugayaa kadib Fikej wuxuu aadayaa inuu raaco gaariga ciyaarta labadii wareeg ee ugu horeeyay wuxuu arkayaa hooyadiis oo taagan laakiin marka uu qaato wareegga saddexaad hooyadiis meesha ma joogto markuu taas arko wuu walwalaa oo wuxuu bilaabaa inuu u yeero hooyo xagee baad tagtay fadlan ka soo noqo meel kasta oo aad joogto ma doonayo inaan ciyaartan sii wado kadib wuu ka degaa ciyaarta oo wuxuu bilaabaa inuu hooyadiis raadiyo laakiin meelna kama helo dadka ku hareeraysan waxay bilaabaan inay weydiiyaan yaa hooyada ah laakiin ma arki karo wejiyada dadka sababtoo ah markii hooyadiis ka tagtay wuxuu yeeshay cudurka aqoonsi la'aanta wejiyada markaas ayuu isla meeshaas ku suuxaa muuqaalka xiga waxaan aragnaa awowgiis oo Fikej geeyay isbitaalka indhihiisa ayaa la baaraa dhakhtarkuna wuxuu sharxayaa inuu qabo cudurka prosopagnosia waxaa laga yaabaa inuu la kulmay naxdin aad weyn sidaas darteed awowgiis wuxuu sharxayaa in tan iyo markii hooyadiis ka tagtay uusan arki karin wejiyada dadka kadib waxaa aragnaa muuqaal dhowr sano kadib ah halkaas oo Fikej u weynaaday oo uu maamulayo shirkadda awowgiis haweeney ayaa timaada oo u sharxaysa faahfaahinta waaxdeeda laakiin Fikej wuxuu ku yiraahdaa hadda waxba ma rabo inaan maqlo marka hore ii keen qaxwo kulul oo chocolate ah markuu sidaas yiraahdo wuxuu galaa xafiiska laakiin qaxwadii weli ma gaarin xafiiska sidaas darteed wuxuu wacaa in adeerkiis Shannon oo weydiiya qaxwada Shannon wuxuu ku yiraahdaa hadda waa inaad si degdeg ah u heshaa caawiye sababtoo ah mar walba qaxwo ku samayn kari mayo maanta oo kaliya ayaan ku keenayaa kadibna mar dambe ma heli doontid kadib waxaan aragnaa hooyada Shannon oo leh Fikej mar kale miyuu ku dhiibay shaqo dhammaan shaqada adiga ayuu ku dhiibaa isaguna ma shaqeeyo Shannon wuxuu u sharxaa in marka uu helo caawiye uu isaga u dhiibi doono shaqada oo dhan laakiin hooyadiis aad bay uga caraysnayd Fikej sidaas darteed Shannon ayaa dejinaya kadib waxaa aragnaa gabadha filimka atriishada ka ah Miran waxay ku shaqaysaa delivery ahaan waxay u timid inay brownies u geyso haweeney lagu magacaabo Noy laakiin haweeneydaas waxay ku tiri marka hore adiga dhadhami si aan u hubiyo inaysan sun ku jirin Miran way dhadhamisaa oo siisaa kadib waxay weydiisaa weli shaqo ma heshay markay taas maqasho Miran way qufacdaa haweeneydu waxay u malaynaysaa inay sun ku jirto browniga laakiin Miran waxay tiraahdaa maya qufac ayaan qabaa waxay mar kale weydiisaa shaqada adigu waxaad ku jirtay ardayda sare markaa maxaad shaqo u heli ladahay Miran waxay tiraahdaa deliveriga ayaan lacag fiican ka helaa maxaa shaqo kale ugu baahanahay kadib waxaan aragnaa hooyada Miran iyo ayeydeed oo jikada ka shaqaynaya iyagoo hadlaya ayeydu waxay leedahay Miran waxay waraysiyo ka gashay meelo badan laakiin meelna kama helin shaqo maanta sidoo kale waraysi ayay leedahay kadib Miran waxay timaadaa guriga ayeyaduna waxay u keentaa dhar cusub iyo cabitaan tamar leh Miran waxay tiraahdaa dharkan jacayl badan ayaad ii siisay sidaas darteed waraysiga ayaan ku aadayaa anigoo xiran nasiib fiicanna ayay ii noqon doontaa kadib waxaan aragnaa Fikej oo helaya qaxwadiisa laakiin wuxuu yiraahdaa tani ma ahan qaxwadii aan rabay waxaan u baahanahay caawiye degdeg ah sidaas darteed waraysiga hal saac hore u soo hormari Miran sidoo kale waxay ogaataa in waraysiga hal saac hore loo soo hormariyay markaasay si degdeg ah u orodaa dhanka kale Shannon wuxuu gaaray xafiiska caawiyihiisuna wuxuu u sheegayaa in dhammaan gabdhihii waraysiga yimaadeen marka laga reebo hal gabadh markuu maqlo magaca gabadhaas wuxuu dareemaa inuu hore u yaqaan sidaas darteed wuxuu ku yiraahdaa caawiyihiisa Fikej ha sugo ilaa gabadhan ay timaado sababtoo ah nooca caawiye ee uu rabo iyada ayay noqon kartaa Miran sidoo kale waxay gaartaa shirkadda iyadoo orod ku jirta waxayna gashaa isla qolka ay gabdhaha kale fadhiyeen Fikej ayaa arka oo yiraahda gabadhan ayaad iga dhigtay inaan sidaan u sugo iyadu waxay ku jawaabtaa maanta oo kaliya ayaan soo daahay mar dambe ma dhigi doonto intaa waxaa dheer adiga ayaad hore u soo hormarisay waqtiga Fikej wuu ka xanaaqaa arrintan wuuna diidaa sababtoo ah qaabka labiskeeda markaas Miran waxay u sheegtaa magaceeda iyadoo doonaysa inay baxdo waxay tiri magaceegu waa Miran Namfan markuu taas maqlo Fikej wuxuu joojiyaa oo ku yiraahdaa xafiiska igu imow Miran waxay timaadaa xafiiskiisa wuxuuna ku yiraahdaa haddii aan ku shaqaalaysiiyo xoghayn sidee ii anfici doontaa Miran waxay sharaxdaa inay si degdeg ah shaqada u barato kadib Fikej wuxuu ku yiraahdaa inay bedesho qaabka labiskeeda wuxuuna sidoo kale sharxaa shaqadiisa wuxuu siiya faylal badan isagoo leh kuwani waa inaad xafidaa oo beri igu soo laabataa kadib Shannon wuxuu Miran u kaxeeyaa inay bedesho qaabka labiskeeda halkaas ayay ka doorataa dhar badan Shannonna wuxuu u keenaa qaar uu isagu jecel yahay kadib wuxuu geeyaa salon markay bedesho timaheeda iyo dharkeeda Miran markay guriga timaado hooyadeed way yaabtaa oo ku tiraahdaa xaggee ka timid adigoo wax iibsasho badan sameeyey markaas Miran waxay tiraahdaa kuwani anigu ma aanan iibsan dadkayga shirkadda ayaa i siiyey markay hooyadeed maqasho aad bay u faraxdaa sababtoo ah ugu dambayn Miran shaqo ayay heshay isla markiiba ayeeyadeed ayaa timid iyaduna aad bay ugu faraxday inay maqasho wararka shaqada habeenkii Miran waxay fadhiisataa oo bilowdaa inay xafido dhammaan faylashii shaqada ee Fikej siiyey kadib waxay weydiisaa hooyadeed maxaad samaynaysaa hooyadeed waxay ku jawaabtaa dalab able biyo ah ayaan helay taas ayaan samaynayaa Miran waxay tiraahdaa ma ku caawin karaa laakiin hooyadeed waxay ku tiraahdaa muddo dheer ayaad faylashan xafidaysay subaxdana waa inaad shirkadda tagtaa sidaas darteed tag oo naso laakiin Miran waxay sharaxdaa shaqada oo dhan waan xafiday iyadoo sidaas lehna waxay si toos ah u gashaa jikada si ay uga caawiso maalinta xigta markay shirkadda timaado Shannon aad buu ula yaabaa isbeddelkeeda cusub sababtoo ah aad bay u qurux badnayd kadib waxay gashaa xafiiska Fikej shaqadii ugu horeysayna wuxuu ku yiraahdaa ii samee hot chocolate Miran waxay bilowdaa shaqadeeda waxay samaysaa qaxwo oo
u keentaa Fikej markuu dhadhamiyo aad buu ula yaabaa sidee ayay u samaysay qaxwo sidan u macaan kadib xasuus dheer ayaa maskaxdiisa ku soo dhacday oo hooyadiis oo sidaas oo kale qaxwo ugu samayn jirtay markii hooyadiis ka tagtay Fikej wuxuu fadhiyaa meel isagoo ooyaya markaas Shannon ayaa u yimaada oo jalaatadiisa siiya wuxuuna ku yiraahdaa wax walba waan kula wadaagi doonaa hooyadayna waxaad u qaadan kartaa hooyada inay tahay Fikej wuu farxaa oo bilaabaa inuu chocolate la cuno isagoo la fadhiya waqtiga hadda Fikej wuxuu cabayaa qaxwada Mirana aad bay ugu faraxsan tahay inay aragto kadib Fikej wuxuu weydiiyaa sidee ayaad u baratay inaad qaxwadan samayso halkee ka baratay Miran waxay tiraahdaa sidaan u aqaan ayaan u sameeyay laakiin Fikej wuu ku adkeeyaa oo ku yiraahdaa ii sheeg sida aad u samaysay dalal badan ayaan tegay meelna kama helin qaxwo sidan oo kale ah markaas Miran waxay tiraahdaa hooyaday ayaa i bartay kadib wuxuu ka codsadaa inay qaxwo kale samayso oo u keento Shannon sidoo kale xafiiska ayuu yimaadaa oo wuxuu rabaa inuu dhadhamiyo laakiin Fikej uma ogola inuu cabo qaxwadiisa Miran oo banaanka fadhida ayaa aragta haweenay sida tashaatiyada Fikej iyo Shannon intay weydiin lahayd Fikej iyo Shannon ayaa ka soo baxa qolka qaxwo ayaana ku daatay dharkooda ka hor intaanay wax weydiin labadooduba waxay iskaga siibaan shaatiyadooda iyada horteeda si ay iskaga bedelaan Miran aad bay ula yaabtaa oo tiraahdaa maxaad si kedis ah ugu samaynaysaan iyaguna waxay yiraahdaan adiga nasiib baad leedahay inaan hortaada ku bedelanay sababtoo ah waan ku ilaawnay inaad halkan joogto Miran waxay ku tiraahdaa waa inaad ka taxadartaan tani sax ma aha waa inaad iga raali gelisaan markaas labadooduba way foorarsadaan oo raali gelin ayay ka bixiyaan kadib Fikej wuxuu u baahday inuu xaflad aado wuxuuna rabay inuu Miran kaxeeyo sidaas darteed wuxuu u yimaadaa inuu dhar u dooro isaguna dharkiisa ayuu doortaa markay Miran dooranayso dhar wuxuu u soo dhawaadaa oo bilaabaa inuu fiiriyo wejigeeda ma arki karo laakiin wuxuu taabtaa wejigeeda oo ku yiraahdaa dhego qabsiyada mateni waa inaad xidhataa kadib muuqaalka xafladda ayaa arkaynaa dadka oo dhan ayaa imaanaya Fikej wuxuu la yimaadaa Miran wuxuuna doonayaa inuu helo maalgeliyayaal shirkadiisa ah marka hore masraxa ayuu fuulaa oo khudbad ayuu jeediyaa halkaas gabar ayaa ammaanta laakiin Fikej ma garanayo cidda hadashay wuxuu xusuustaa inuu Miran ku yiri inay dadka u sheegto Miran waxay u sheegtaa tani waa Mista oo ku ammaantay markaas Fikej wuu u mahadceliyaa kadib Tay ayaa u soo dhawaanaysa Miran waxay rabtaa inay u sheegto laakiin Ta ayaa durba agtiisa istaagta oo si dhow ula hadasha waxay tiraahdaa waxaan rabaa inaan kula kulmo shaqo ayaan ka leeyahay laakiin Fikej si cad ayuu u diidaa oo ku yiraahdaa haddii aad wax u baahan tahay la hadal caawiyahayga dhanka kale awowga Fikej iyo hooyada Shannon ayaa wada hadlaya waxay leedahay Fikej shaqada oo dhan wuxuu u dhiibay Shannon laakiin awowgu wuxuu leeyahay arrintu sidaas ma aha labadooduba shaqooyin kala duwan ayay leeyihiin kadib Tay ayaa timaada hooyaduna waxay weydiisaa Fikej ma ku diiday iyadu waxay tiraahdaa haa lama gaari karo waxayna ku dartaa haddii aad wax u baahan tahay la hadal Shannon kadib waxaan aragnaa Fikej oo meel qarsoon taagan sababtoo ah Miran ayaa ka maqnayd wax yar kadib Miran ayaa timid iyadoo raadinaysa wuxuu ku yiraahdaa miyaan ku dhihin ila joog mar walba kadib labadooduba waxay u tagaan inay la hadlaan maalgeliyaha markay wada hadleen kadib waxay sidoo kale u baxaan inay sagootiyaan maalgeliyihii diyaar ayay u ahayd inay maalgeliso shaqada Fikej maalgeliyuhu wuxuu ammaanaa dhego qabsiyada Miran markaas Miran waxay tiraahdaa kuwani aad bay u culus yihiin anigu gebi ahaanba ma jecli laakiin Miran ma aysan ogeyn in dhego qabsiyadan ay ka yimaadeen shirkadeeda isla markaana iyada lafteedu ay naqshadaysay markay maqasho hadalka Miran haweenaydu way xanaaqdaa oo si caro leh ayay meesha uga baxdaa markay Miran ogaato arrintan waxay bilaabtaa inay raali gelin siiso Fikej laakiin Fikej si adag ayuu u canaantaa sababtoo ah maalgeliyihiisii ayaa ka tegay iyada darteed kadib markuu si xun u canaanto Miran iyaduna way xanaaqdaa oo meesha ayay ka baxdaa markay tagto kadib Fikej wuu ka qoomameeyaa oo wuxuu yiraahdaa waxaa laga yaabaa inaanan sidaas u canaanan wuxuu ka fikirayaa inay ka timid qoys sabool ah oo aysan wax badan ka ogeyn brandska sidaas darteed wuxuu u baxaa inuu raali gelin siiyo waxaan markaas aragnaa Shannon gurigiisa halkaas oo hooyadiis ku leedahay waxaan maqlay in maalgeliyihii ka tegay sababtoo ah xoghayntiisa taas way ku haboonayd Shannon wuxuu ku yiraahdaa hooyo maxaad ka hadlaysaa hooyadu waxay ku tiraahdaa adiguna waa inaad shirkad ku gaar ah bilowdaa tanya sidoo kale waxay rabtaa inay ku maalgeliso waan la hadlay iyada hooyadu waxay isku dayaysaa inay Shannon ka hor keento Fikej Shannonna wuu bilaabaa inuu xiiseeyo hadalladeeda dhanka kale Miran waxay ka qoomamaynaysaa wixii ay samaysay sidaas darteed maalinta xigta waxay u keentaa Fikej keek raali gelin ah laakiin Fikej weli ma iman xafiiska markaas Shannon ayaa isagu cuna keega kadib Miran waxay u baxdaa inay raadiso Fikej waxayna gaartaa jardiinada halkaas oo ay ku aragto isagoo fadhiya ciyaar uu caruurnimadiisii ku fariisan jiray Fikej wuxuu ku mashquulsan yahay fikirkiisa markaas Miran ayaa u timaada iyadoo orodaysa oo leh boos halkan baad joogtaa aad buu ula yaabaa sababtoo ah cidna ma ogeyn inuu halkaas joogo wuxuu ku yiraahdaa ma qalab baad igu rakibtay isagoo isbaaraya laakiin Miran waxay siisaa jawaab qosol leh kadib labadooduba way ka tagaan meesha habeenkii Fikej wuxuu ku yiraahdaa beri waxaan leenahay kulan maqaayad sidaas darteed si fiican u labiso markuu baxo kadib wuu soo noqdaa oo ku daraa beri kabaha dhaadheer soo xiro sababtoo ah dhererkaaga waa gaaban yahay mar walbana waa inaan hoos u fooraraa si aan ku maqlo dhabarkaygana wuu i xanuunayaa sidoo kale ha urinin urka wadooyinka kadibna wuu baxaa Miran aad bay uga xanaaqdaa hadalkiisa waxayna tiraahdaa waa qof aad u qalafsan lugahaygu horay ayay ii xanuuneen kabaha dhaadheer oo aan xirnaa maalintii oo dhan awgeed haddana wuxuu igu leeyahay mar kale xiro Tanya ayaa Fikej u yeertay kulanka laakiin wuxuu yimid isaga oo Miran wata Tanya aad bay uga xanaaqdaa arrintan oo waxay bilowdaa inay Miran ku jeesjeesto kadib Fikej wuxuu Miran ku yiraahdaa waxaan maqlay inaad ii samaysay keek raali gelin ah xagee ayuu jiraa Miran waxay
waxay tidhaahdaa Shannon ayaa cunay. Fikej wuu xanaaqa oo yidhaahdaa sidee keegayga qof kale u siisay. Miran waxay tidhaahdaa waa keeg keliya, mar kale ayaan ku samayn doonaa. Laakiin Fikej wuxuu ku adkaystaa hadda ayaan rabaa. Markaas waxaan aragnaa Tanya iyo Shannon. Shannon wuxuu weydiiyaa sidee bay ahayd ballantaadu maanta Tanya? Waxay tidhaahdaa aad bay u xumayd sababtoo ah xoghayn ayuu watay. Dhanka kale Fikej iyo Miran waxay yimaadaan guriga Miran sababtoo ah wuxuu rabaa keeg degdeg ah iyagoo si qarsoodi ah u galaya. Iftiinka oo dansan awgiis ayay isku dhacaan oo dhulka ku dhacaan iyagoo isdul saran. Waxay ku dhow yihiin inay si kadis ah isu dhunkadaan. Markaas iftiinka ayaa shidma oo ayeeyada ayaa soo gasha. Markay aragto Fikej oo u dhow Miran way xanaaqdaa oo bilowdaa inay garaacdo. Hooyada Miran ayaa timid oo si dib leh u joojisay. Kadib Miran waxay sharaxdaa inuu yahay booskeeda. Markay maqlaan way yaabaan. Fikejna wuxuu sharxaa qofka uu yahay. Kadib waxaa aragnaa hooyada Fikej oo ku nool kaniisad. Waxay u sheegtaa Miran iyo hooyadeed in haddii ay rabaan inay arkaan ay halkaas iman karaan, laakiin aysan cid kale u sheegin. Isla waqtigaas hooyada Miran waxay tusaysaa wararka oo sheegaya inay leeyihiin. Waxay ku tiraahdaa haddii aad rabto inaad ku laabato wiilkaaga waad tegi kartaa. Laakiin hooyada Fikej waxay tiraahdaa xaaladaydu aad bay u liidataa. Maalinba maalinta ka dambaysa way sii xumaanaysaa. Maalin ayaan qof walba iloobi doonaa, xitaa naftayda. Waxay sheegtaa in Fikej uu horay u soo maray dhibaatooyin badan ayna rabin inuu mar kale dhibaato la kulmo. Sidaas darteed waxay ka codsataa in aan cidna loo sheegin. Hooyada Miran way aqbashaa iyadoo aragta xaaladeeda. Waqtiga hadda hooyada Miran waxay dibadda u kaxaysaa Miran oo weydiisaa ninkani ma wiilkeediiba. Miran waxay ku tiraahdaa si tartiib ah u hadal. Isaguna ma oga arrintan. Hooyadu way walwalsan tahay, laakiin Miran waxay ku qancisaa in uusan ogaan doonin haddii aysan u sheegin. Kadib Miran waxay ku noqotaa jikada. Fikej wuxuu ku yiraahdaa waxaan u maleeyay inaad keeg ii samayn doonto oo aad isiin doonto, laakiin waxaad iga dhigaysaa inaan shaqeeyo. Miran waxay tiraahdaa haddii aad rabto inaad keeg cunto waa inaad barataa sida loo sameeyo. Maalinta xigta markuu keegu diyaarsan yahay Miran waxay u qaadaa hooyada Fikej oo ku tiraahdaa wiilkaaga ayaa sameeyey keegan. Markay maqasho way naxdaa oo oydaa iyadoo leh keegu aad buu u macaan yahay. Waxay sidoo kale weydiisaa sidee ayuu yahay, sideese ku ogaatay inuu yahay wiilkayga. Miran waxay ku jawaabtaa marar badan ayaan ka dalbaday shaqo shirkadiisa, laakiin mar walba waa la iga diiday. Marar badan ayaan codsaday, markaas ayaan go'aansaday inaan magacaaga isticmaalo si uu iigu yeero marka uu arko magacaaga. Sidaas ayaana dhacday. Markuu arkay magacaaga wuxuu i siiyey shaqada. Xitaa waxaan u sameeyey oo siiyey hot chocolate-ka aad i bartay. Weli wuu ku xiiseeyaa. Markay taas maqasho way faraxdaa oo waxay bilaabtaa inay weydiiso sidee ayay dadka ku hareeraysan ula dhaqmaan. ma leeyahay wax cudur ah? Miran waxay dhahdaa Fikej si fiican ayuu shaqadiisa u qabtaa, dadka kalena way jecel yihiin, wax cudur ahna ma qabo. Kadib waxay Miran ka codsataa sawir, waxayna dhahdaa ma ii keeni kartaa sawirka Fikej. Miran way ogolaataa. Hooyadu iyadoo faraxsan ayay keega cunaysaa, laakiin si lama filaan ah wejigeedu wuu isbedelaa. Waxaana la ogaadaa inay wax walba ilowday, xitaa nafteeda. Waxay bilowdaa inay weydiiso adigu yaa tahay, aniguna yaan ahay. Markay taas maqasho Miran way isku duubtaa oo ku tiraahdaa hawalwelin, anigu qof xun ma ihi. Markay Miran guriga timaado waxay aragtaa eedo u timid oo brownies ka qaadanaysa. Maalinta xigta shirkadda waxaa ka dhacaya kulan, halkaas oo awowgu ku yiraahdo Fikej iyo Shannon inay helaan maalgelin wanaagsan. Markuu sidaas yiraahdo ayuu baxaa. Kadib hooyada Shannon waxay ku tiraahdaa anigu waxaan hayaa maalgelin maskaxdayda ku jirta. Shannon wuxuu ku yiraahdaa hooyadiis waxaan rabaa inaan shaqadayda gaarka ah sameeyo, laakiin hooyadiis waxay rabtaa inay hoos u dhigto Fikej. Waxay tiraahdaa Fikej hooyo ma leh oo caawisa, laakiin anigu waan kula joogaa oo waan ku caawin karaa. Markuu taas maqlo Fikej wuu murugoodaa, wuuna ka kacaa meesha. Miran sidoo kale way kacdaa si ay u raacdo, laakiin hooyada Shannon waxay akhridaa magaca Miran ee kaarka aqoonsiga waxayna weydiisaa yaa magacaas ku siiyey. Shannon wuxuu ku yiraahdaa hooyadiis iska daa ha tagto, shaqadeeda ayay banaysaa. Miran way baxdaa, laakiin hooyada Shannon waxay tiraahdaa sidee ayay magaceedu ula mid noqon karaa kan hooyada Fikej? Tani ma noqon karto shil. Sanado badan ayaan raadinayay qof magacaas leh, laakiin ma helin. Shannon wuxuu ku yiraahdaa hooyo iska daa, waa keliya caawiye. Laakiin hooyadu waxay tiraahdaa macluumaadku waa muhiim, iyadoo sidaas lehna way baxdaa.